gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa xarig ka jaray furitaanka garoonka kubadda cagta iyo kubadda kolayga ee degmada Cabdicasiis oo dib u dayactir lagu sameeyay waxaana xarig jarka garoonkani goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir iyo qaar kamid ah bulshada reer Cabdicasiis furitaan kadib ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo gudoomiyaha degmada Cabdicasiis waxa ay la kulmeen qaar kamid ah dhalinyarada reer Cabdicasiis oo u diyaar garoobayay kulan ciyaareedkii ugu horeeyay ee lagu furo garoonka kubadda cagta ee degmadaasi oo lagu sameeyay dib u casriyeen gudoomiyaha degmada Cabdicasiis mudane Sharmaake Maxamed Ladane ayaa faahfaahin ka bixiyay furitaanka garoonkani iyo dayactirkii lagu sameeyay gudoomiyaha shalay wuxuu dhagax dhigay wadada Liido jidka burbursanaa Liido in muddo wax laga qaban waayay ayaa waxay u suurta gashay in uu si kastaba ha ahaatee uu raadiyo habkii uu ka dhigi lahaa muddo badanna annagana aan ka codsanaynay ugu dambeynna shalay asagoo ra'iisul wasaaruhu uu goobjoog ka ahaa oo gudoomiyaha gobolka iyo ra'iisul wasaaruhu ay wadadaas Liido ay fureen aad iyo aad aan uga mahadnaqaynaa oo aan uga hambalyeynaa gudoomiye ku soo dhawow hadda gudoomiyaha wuxuu ka mid yahay dadka degan degmada Cabdicasiis marka waxaan leenahay waa degmadaadii marna aad madaxda ka tahay marna aad deegaanka ku tahay dadka halkan joogana waa waaxyihii ilaamihii dadkii deegaanka degmada Cabdicasiis aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa waa kaaga mahadnaqaynaa inaad maartay noogu timaado inaad nala furto garoonkan cusub oo hadda hay'adda TIS Plus gobolka Banaadir ay hawshan qabteen marka gudoomiye aad iyo aad ku mahadnaqaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay horumarinta fursadaha lagu dhiirigelinayo dhalinyarada Soomaaliyeed annaga maamulka hadana gobolka Banaadir waxaan ahmiyad gaar ah siinaa dhalinyarada iyo sidii horumari lahaayeen maanta oo ah munaasabadii dhalinyarada adduunka 12 Agoostana inay ku soo aado xariga ka jaridda garoonkan ciyaaraha ee degmada Cabdicasiisna waa mid tusaysa sida aan ahmiyadda u siinayno dhalinyarada waana naga go'an tahay mudane gudoomiye adiga iyo maamulkaaga iyo bulshada Cabdicasiisba waxaan idinkaga mahadcelinaynaa doorkiina dawladnimo iyo dhisidda iyo nidaamka dawladnimo ha noqoto nabadeynta ha noqoto barnaamijka darisaynta ha noqoto isdhexgalka bulshada waxaan rabnaa hormuudka aad ka aan jirteen inaad ka sii ahaataan Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho